qofku markuu sheegayo waxani waa ciyaaraheegiyo kale waxaan aad baan ugu fiicanahay aniga la igu talagalayba waxaan kartaa I'm in my element when I play sports I'm in my element when I'm learning a new language I'm in my element when I'm cleaning I'm in my element when I'm cooking dadka qaar si fiican wax u kariyaan I'm sick and tired when people lie marka beenta sheegaan I'm sick and tired of onions I don't like onions when I eat the food I am sick and tired of anchero and laxoox in the morning down marka hoosta qashinka lagu jira waa macallin maxaa laga wada macallin down in ma qashinka hoosta waxa laga wadaa hello salaam alaykum magacaygu waa coach Ahmed Khadar macallin waxaan rajaynayaa fiicantiin welcome to Iqra College the best place to learn English online and offline we have another English lesson for you today you know what time it is it's English time marka inshallah maanta cashirku wuxuu ku saabsanaanaya farxadda iyo murugada So get your pencil, get a piece of paper. Let's write this down. Let's use these phrases, okay? All right, so I'm at Hadii Iqra College. You can learn online or offline, and we welcome you. I hope you enjoy this lesson. If you do enjoy this lesson, share it with a couple friends, and let's get started, okay? Phrases to talk about happiness and sadness. Marka waxa weeyaan sentenceyo isticmaali kartid amba hadal ereyad isticmaali kartid marka rabtid inaad ka hadashid farxadda ninka faraxsan iyo murugada like this guy he's sad so happiness wa farxadda sadness wa murugada I feel very very sad oh wait let's go below there's four maanta waxaan qaadanaa four all right four idioms two of them are about happiness And two of them is when you don't feel good, you feel bad. Marka labada ugu horeeya farxadii ka yara waramayaan waad isticmaali kartaa labadan kalena waa marka xaaladaada aan fiicneen but isticmaali kartaa okay marka ereyadan ha iska daawanun waa inaad isticmaashid way ka caawinaysaa luqadda doonsina baratid waxa fiican inaad isticmaashid markiiba waxa ku asxaabtaaba u sheegi kartaa waxa la practice gareyn kartaa familygaaga waxa la practice gareyn kartaa your friends anybody or if hadaan asxaab lahayn amba qof aad Englishka kula practice garaysid muraayada tagi kartaa and then inta abaabka soo xiratid sidaan dadka ku moodin inay waalan tahay muraayada ay kartaa and then what practice garay kartaa badu bada practice okay good so an egg number 1 to be on cloud 9 marka phrase ka koowaad waxa weeyaan to be on cloud 9 marka farxadda ka waramisid waxaad isticmaali kartaa to be on cloud 9 Can we adag yahay but we're isticmaalin okay we're going to use this one marka casharada waxa ku talagalnay qofka in yar wax u yara balowsan yihiin okay and yara akhrin kara all right that's the target okay marka and sentence ku isticmaalno I am on cloud 9 when to be on cloud 9 marka cloud horta macnihiisu waa maxay to be on cloud 9 to be on cloud 9 means you are very 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 happy aad oo faraxsantahay ila hatta daruuraha ku jirta you know to be cloud wa daruurta so I'm on cloud 9 waxa weeyaan markaad cabirisid farxadaada in badan tahay I'm on cloud 9 when marka soo qor isku day waxaad isku daydaa goormaad faraxsan tahay I'm on cloud 9 when I'm on cloud 9 when I get money I'm on cloud 9 when I see my mother happy mashallah marka hooyaday faraxsan I'm on cloud 9 when I get a new job I'm on cloud 9 when I speak a new language. I'm on cloud 9 when I see English students succeed. I'm on cloud 9 when I learn a new thing every day. I'm on cloud 9 when I reach my goals. I'm on cloud 9 when I read a new book and finish the book. I'm on cloud 9 when I play with my sisters or brothers or my children or my family. So when are you on cloud 9? Well, so qoraysa isku day. Let me see your creativity. Waxaad isku dayaysaa inaad soo sheegto goorma adigu faraxsan tahay anigu waxaan faraxsanahay aad iyo aad walibana marka badu bada ku soo qor okay you got to use the language marka isticmaashid apply it you will learn waxa jirta mahma English waxa weeyaan if you don't use it you lose it hadaan isticmaalin waa iloobisa yes hadaan isticmaalin waa iloobisa if you don't use it you lose it so use it let's go number 2 to be in my element I like this one to be in my element to be in my element to be in my element this one weera adig ay waxa laga wadaan qofku markuu sheegayo waxani waa ciyaaraheegiyo kale waxaan aad baan ugu fiicanahay aniga la igu talagalayba
ما مقشان هبل الله akhriska waa ciyaarihiisiba isaga u daaba isaga inuu computerka ka shaqeeyo waa ciyaarihiisiba uu ku fiican yahay u daa. That's called to be in my element. And sentence ku eegno. I am in my element when badubada. Waa sheegaysa badubadaada. I'm in my element. When are you in your element? Waxaan kartaa. I'm in my element when I play sports. I'm in my element when I'm learning a new language. I'm in my element when I'm cleaning. I'm in my element when I'm cooking. Dadka qaar si fiican bay wax u kariyaan. Waa ciyaarahoodiba wixii ka soo bahal wixii soo tuurayaan baasto macaan. I'm in my element when. Marka adiga sheegay when are you in? Qof baa mobile u dhiibisa uu hagaajinaya markiiba he's in his element. Qof baa u dhiibisa xisaab markiiba ka shaqeynaya. Qof baa lacag u dhiibisa uu save gareynaya uu si fiican buu u dhigaya waa ciyaarihiisiba waa wixiisi waa expert buu ku yahay uu ku fiican yahay. He's in his element. Marka soo qoraysa I'm in my element when. Okay, now let's go to the negative feelings. Are you ready? Okay? Marka buuga ku qora inshallah. To be sick and tired. To be sick and tired. To be in a noqdo sick waa garanaysiin waa xanuun soo maaha. Tiredna waa daal laakiin lagama wado tired haddaad sentenceka sidaa loo isticmaalo waxaa laga wadaa you are fed up khaatiyaan baad taagan tahay. I am sick and tired of marka waa sheegaysaa I am sick and tired iga daba orda I am sick and tired of I am sick and tired of waa sheegaysaa I'm sick and tired of traffic jam mar walba wuxuu odhanayaa can license-kaaga iyo registration-kaaga hadda way ku weydiiyeen I'm sick and tired of smoking qofku markuu sigaarka cabo I'm sick and tired of that khatiyaan baan ka taaganay I'm sick and tired of the roads I live in Hargeysa wadada is messed up way soo xumaatay inkastoo mayorka imika in moog si fiican buu wadaa it's very nice imika but I'm sick and tired of most of the roads I'm sick and tired when people lie marka beenta sheegaan I'm sick and tired of onions I don't like onions when I eat the food I am sick and tired of anchero and laxoox in the morning. What are you sick and tired of? maxaad khaatiyaan ka taagantahay I'm sick and tired of that. I'm sick and tired of bad friends. I'm sick and tired of people who use bad language. I'm sick and tired of the loud noise. What are you sick and tired of? Okay. Number 4, kii ugu dambeeyay. May la socotiin? Ma soo jeedin? Good. We got a lot to learn. You have to repeat, and you have to be excited. You have to be interested. haddaad luqadda doonaysa bartid you have to be interested waa ina xiisaynaysid. To be down in the dumps. iga daba orada to be down in the dumps. To be down in the dumps. Dumps waa qashinka. Down marka hoosta qashinka lagu jira waa macallin maxaa laga wada macallin down in the ma qashinka hoosta waxa laga wadaa murugo sayda ku jirta murugo badan baad dareemaysaa. You know you feel sad. Marka down in the dumps I mean I feel very sad today. I feel very, very bad. Okay? Tusala. I am down in the dumps when? I am down in the dumps when I'm sick. I am down in the dumps when I fail. I am down in the dumps when I see poor people. Muruga badan baan dareemaya markaan arko dadka aan waxba haysan. I'm down in the dumps when I see sick people. I am down in the dumps when I see the African people fighting. Well, I'm down in the dumps when I see war. I'm down in the dumps when I see the Syrian people in Hargeisa and their babies in the streets. It's very sad. I'm down in the dumps when I see people who don't have a house. I'm down in the dumps. I feel down in the dumps when I see the people abusing the animals. dameerka ugu dhuftaan si xun bay ugu dhuftaan bilaa naxariis ilaahay ku weydiinaya yawm qiyaamaha. So you got to be ready. When do you feel down in the dumps? Or sheegaysa down in the dumps. goorma muruga dareemisa. Okay? Marka erayadan isticmaala and try to use these once. My name is Coach Ahmed Khadar Macalin. Coach waxa weeyaan tababar oo kale because macallimiin imika xagan iqra college ma isticmaalo teacher waxa isticmaala coach because luqaddu wuxuu u baahantay in qofka lagu tababaro. maaha on la dhigo haddaan kuu dhigo grammarka maalin walba kuu dhigo dee ilaa goormaa la dhigaya grammarka welina ardayda kuma hadli karaan soo so you need in expeditions. Okay? So nala socda. We're going to make a lot of videos for you. haddaad Englishka fahmaysid good job sii wado. waxaa la share garaysa qof aanad si fiican waliyo aan ugu hadli karin amba u baahan and inshallah we're here to help everybody who needs it. Thank you.